Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo ka joogtiin dunida iyo daafeeda magacaygu axmed faar halka nagala socotiinna waa himna training academy iyo soo kale malaha iskuule soo dhawaada saaxiibayaal ku soo dhawaada cashirkii 12aad ee graphic designka ahna qaybtii labaad ee farsamooyinka ugu badan ee isticmaalaan dadka designerska waxaa jirtay inaan bilownay farsamooyinka ugu badan ee isticmaalaan dadka designerska haddaba saaxiibayaal hore intaana cashirka bilaabin waxaan horay cashirka hore ugu soo sameynay qaybta designka noocaana iyo sidoo kale halkan haddaba waxaan bilaabi doonaa ama sii wadi doonaa farsamooyinkii ay isticmaalaan dadka designerska sheebabka noocaana sida loo sameeyo sidoo kale sheebka sida saan loogu kala jaro sida boostiga ama maaragtay hadalka noocaana kale meesha loogu qoro weliba adigoo isticmaalaya kalarro kala duwan intaasoo dhan waa arki doonaa sidoo kale saaxiibayaal waxaa wada ogsoonaha inta badan adeegyada online-ka ama barnaamijyada discountka waxaa markii lagu sameynaa inaad ku aragtid inta badan sheebka noocaan oo kale ayadana si loo sameeyo hadda ayaan arki doonaa haddii ilaahay idmo haddaba u diyaar garow cashirka oo dhammaystiran saaxiibayaal ugu horreyn waxaan ku bilaabi doonaa sida loo abuuro sheebka noocaan oo kale sheebka markaas aad samaynaysid sheebkan oo kale sida loo sameeyo ayaanu ku bilaabinaa ugu horreyn waxaan tegaynaa designka aynu shaqadeeda ku qabsanaynay waxaan tegaynaa halkan sheebs kadibna waxaan soo dooranaynaa sheebkan rectangle ayaa soo dooranaynaa kadibna halkan ayaa sidaas u dhigaynaa sheebka marka halkaas sidaas u dhigtid waxaan samayn doonaa saaxiibayaal sheebka haddii aad rabtid sidii kii hadda hore kale inuu kuu noqdo qaybtan ayaad qabanaysaa kadibna waxaa ujeedaysaa dhinacaas right-ka ayaa ujeedaysaa saasoo kale markaa ujeedi waxaa ujeedaa sheebka hadda si isla eg ayuu u soo aruuray sheebka haddaba saaxiib waxaa ujeedaa sheebka marka uu sidaan u soo aruuray in labadii geesoodba uu sheebka ka soo aruuray marka horena uu ahay mid afar geesa laakiin hadda yartaan qaabka afar geeska oo wax badan iska bedelay si lamid a mararka qaar waxaa u baahan kartaa inaad sheebka sidaan oo kale aad ka dhigid sidaan kale inaad ka dhigatid aad tiraa dhinacaas fanaxa iga noqdo dhinacan kale fanaxa iga noqdo midkaanoo weyn midkaan weynka xala soo sameynaynay ama cashirka hore aan kusoo qaadanay asagoo yar macnaha qaabka loo sameeyo ayaa mararka qaar u baahanaysa haddaba taasina si loo sameeyo aad ay u sahlan tahay waxaa tegaynaa isla qaybta rectangle ayaa tegaynaa kadibna waxaan samayn doonaa halkan ayaa sheebka soo dhigaynaa sheebka marka halkan soo dhigno kadibna waxaan samayn doonaa saaxiibayaal qaybtan hoos ayaa u soconaynaa halkan qaybtan hoos ayaa u soconaynaa halkan markaas soo soconaa halkan linkigan ayaad furi doontaa halkaas linkiga markaas saa u furtid kadibna waxaa samayn doontaa waxaa leedahay sheebkan halkan ha layga dhigo adiga cabirka iska qaadanaysa cabir adiga iska qaadanaysa aniga inta badan waxaan isticmaalaa 75 ama 87 kale aan ka dhigto maadaama kaas 87 gacanta ku dhacday kana sidoo kale waxaa ka dhiganaa asagana 87 ayaan ka dhiganaa bal haddaba labadooda markaas 87 ka dhigay wax isbedelay ayadana aan aragno waxaa ujeedaa sheebka hore xoogaa sheeb weeg ayaa meesha lagu sameeyey haddii aad sheebka inaad soo yareedo control t ayaa leedahay kadibna waxaad isla qabanaysaa shift iyo alt kadibna geesaha ka mid ayaa soo qabanaysaa oo sheebka sidaas ayaad maaragtay u yareynaysaa haddaa rabtid inaad dhuubtidna geeska ayaa soo qabanaysaa kadibna sidaas ayaa maaragtay u soo yareynaysaa intaas markii aan samaynay waxaan u baahannahay marka inaan kalarkan bedelno haddaba saaxiibayaal waxaan isticmaali doonaa wax la yiraahdo eyedrop waxay noo qabataa waa samaxay eyedrop waxay noo suurta gelinaysaa sheebkan haddii aan rabno inaan kalarka bedelno waxaa jirtay cashir hore aan ugu soo hadalnay way jirtay kana waan kuu xoojinayna haddii aan rabno sheebka inaan kalarka bedelno jirtayna sheebab hore aan kalaris hore soo isticmaalnay waxaa fiican inta badan hal kalar ama laba kalar inaad dhisaynkaaga ku sameeyo oo kalaro fara badan aada isticmaalin sababtoo ah kalarada faraha badan waxay bahdili doonaan adiga dhisaynkaaga si marka ay kugu qurxoonaato waxaa samaynaysaa halkan sheebkan oo kale ayaa dul tegaysaa kiliga ayaa siinaysaa kadibna qaybtan sheebska ayaa tegaysaa sheebs markaas halkas kalariska ayaa ku dhufanaysaa kadibna halkan ayaa soo furaysaa halkan marka aad saan usoo furtid oo shaashadan ay kusoo furanto waxaan rabnaa marka inaan sheebkan kalarka sheebkan qaybtiisa kore kalarkaas kale inaan siino ayaan rabnaa si aan marka taas u sameyno waxaan samayn doonaa saaxiibayaal sheebka halkaasoo kale ayaan tegaynaa haddii aad halkaas aan kilig siiyo sheebka wuxuu automatically u qaadan doonaa qaybta kalarkeeda waxaan samaynaa halkaan oo kale hadda kilig siinaa marka kilig siiyo wuxuu qaatay madow haddii cagaarka kilig siiyo cagaar u qaadana kadibna waxaan leeyahay okay markaa idhahdo waxaa ujeeda hadda sheebka waxaa u qaatay kalarka nooca cagaarka ah ayuu qaatay sidaas waxaa marka ku bedelay sheebka kalarkiisa haddii aan rabo inaan kan siiyo ayadana waa sii karaa oo halkaan ay tagaan kadibna haddaan rabo halkaan ayaa soo furaa awal hore halkaas soo furnee haddii rabtid markaan halkaan waa soo furi kartaa laakiin waxaa fiican marka halkaan soo furtid kadibna qaybtan aad kasii dooratid qaybtan marka kasii dooratid waxaa isticmaalaysaa marka waxa la yiraahdo eyedropka marka wuxuu kuu suurta gelinaa kalar hore kuu diyaarsan haddii uu jiro inaad isaga qaadatid kadibna aad meesha ku shubtid hadda kalarkan waxaa ujeedaa waa green haddii aan rabo white halkan whiteka kale kilig siinaa kilig markaasi waxaa ujeedaa halkan automatically waxaa gelaa kalarka aan markaas aan ugu taabto tusaale ahaan haddii aan taabto ilkahaas kale haddii aad taabto waxaa ujeedaa ilkaha kalarkoodi ayaa halkan gala marka waxaa leeyahay okay marka aad sheebka automatically wuxuu qaadanaa kalarkii ayuu wuxuu qaadanaa si automatically intaasina waxay kuu suurta gelinaysaa inaad sheebka kalarkiisa aad bedeshay waxaan samayn doonaa marka ani sheebkan kalarka halkaas qaybta kalarkeeda ayaa sii doonaa laba wayba waa samayn karaa inaan halkaas dulta iyada qaybtan sheebiska aan tago kadibna aan halkan soo furo kadibna kalarkii aan raba aan markaas soo doorto
ama waxaa samayn karaa karamka soo doorta halkaan kale ayaa soo fura waxaa soo qaadanaya kalarkan lambarkiisa ayaa soo qaadanaya lambarka kalarka waa kana halkaan hoose oo ku jira waa kana lambar kalarka asaga ayaad koobiyeysanaysaa control c ayaa leedahay intaa marka aad sameydid kadibna waxaa samaynaysaa shape-ki aad rabtid inaad kalarka bedesha ayaa dul tagaysaa tusaalahaan kan oo kale ayaa rabaa inaad kalarka bedel asaga ayaa dul tagaa kadibna halkan shapeska ayaa tagaa halkan shapes marka kalarka ayaa ku dhufana qaybtan colors ayaa soo fura halkan ayaa marka ku baasti garay doonaa kalarkii aan hore u watay kalarkii aan hore u watay ayaa halkan baasti ku dhigi doonaa markaan baasti ku dhiga kadibna waxaa dhigi doonaa okay automatically waxaa ujeedaa si toos ayuu shape wax u qaatay kalarkii marka adiga ayay kugu xiran tahay qaabka aad colors ku isticmaale iyo colors aad isticmaali doontid waa mid adiga kugu xiran hadda waxaan samayn doonaa marka shape-ka asagana sidoo kale waan soo yaray doonaa si kii kale ayaa maartay u soo yaray doonaa bal haddaba haddii aan labadan shape samaynay waxaan ku noqon doonaa design-keeni hore wixii kaloo macquula ku dari karno ayaan ku darayna saaxiibayaal waxaan samayn doonaa qaybta noocaan tan inta badan waxaa laga yaabaa inaad ku aragtay adeegyada online-ka lagu iibiyo inaad ku aragtay labadan inta badan adeegyada online-ka ku aragtay ayaa laga yaabaa si aad tan markaa u samaydid aad ayay u sahlan tahay isla iyadana waxaan isticmaali doonaa rectangle-ki waxaan tegaynaa halkan shapeska rectangle ayaa soo qaadanaynaa halkan ayaa sidaas u dhigaynaa shape rectangle marka halkaas sidaas u dhigtid kadibna waxaad sii doontaa kalarkii aad markaas adigu rabtid anu tusaalahaan kalarkan oo kale ayaa iska siinaa kadibna waxaan samayn doonaa control t ayaa leedahay waa select garaynaysaa markaad select gareydid oo control t aad aadid kadibna waxaad dhigi doontaa right click markaad tirayd halkaas ay ku qoran tahay perspective ayaad ku dhufanaysaa kadibna fanaxdan kor ayaad qabanaysaa sidaas ayaad maarta u jiidaysaa sidaas markaa u jiidid kadibna waxaa waaye waa gadaal u bixinaysaa sidaad kiyadeeta ama meesha ku arkayno kale waa ka halkaas ayaa sidaas u gelinaysaa kadibna waxaad ku samayn doontaa wixii aarta ayaa markas maarta ku dul qoraysaa tusaale ahaan waxaa leeyahay taxi oo kale soo qaada leeyahay halkan igey waxaan ku qoraa 100 ayaa ku qoraa inta marka ku qoro kadibna waxaa leeyahay okay fontiga haddaan rabo iska bedela haddii aan rabana maarta sida ay u deysaan laakiin markaan rabo fontiga waa iska bedela fonta qurxoon ayaan qaadanaa boqolka marka waxaan samayn doonaa ayadana double click ayaa waa grayna halkaas ayaa taga kadibna waxaan ku shubi doonaa kalarka white-ka si aan kalarka white-ka ugu shubo waxaan sameynaa halkan inta tago saas waa u isticmaali karaa saas waa dhigi karaa sidoo kale waxaan isticmaali karaa eye drop-ki aan daayid soo aragnay isagana waan isticmaali karaa adiga ayay marka kugu xiran tahay hadba farsamadii aad isticmaalaysa halka haddii aan markaas u dhigo waa ka ujeeda control t ayaan leeyahay kadibna waa soo weynaynaa oo sidaan ayaan maarta u soo weynaynaa adiga ayay marka kugu xiran tahay qaabka aad u isticmaali lahayd design-ka iyo qaabkii aad wax u bedeli lahayd muhiimaddu waxay tahay qaabka shape-ka loo sameeyo quruxda badan arkaysid inaad fahansan tahay aniga waxa dhan oo halkaan aan shape-ka tirada badan u sameynaya waxay tahay in ay la fahantiin qaabka loo sameeyo shape-ka ugu qurxoon ee loo isticmaalo barnaamijyada design-ka haddaba waxaan samayn doonaa oo isla farsamadana si wadi doonaaye shape-ka noocaana kan oo kale sidii loo sameeya arki doonaa kan hadda wuxuu ka kooban yahay laba shape oo is saaran oo mid kalar leeyahay midna uusan kalar lahayn sidoo kale waxaa ujeedaa meesha waxaa ku qoran boqolkiiba 50% ayaa ku qoran si markaa loo sameeyo iyadana aad ay u sahlan tahay isla design-kan ayaan ku noqonaynaa halkan waxaa soo furaynaa shapeska kadibna waxaa dooranaya labsi tool labsi tool markaad dooratid halkan ayaa maartay sidaas u dhigaysaa sidaas markaa u dhigto saaxiib waxaa samayn doontaa kalarkiisa isku daa si lamida waxaa samaynaysaa control j ayaa leedahay oo koobi ayaa ka samaynaysaa koobi marka aad ka sameeyid marka halkan ayaa tegaysaa qaybtan layerska ayaa tegaysaa waxaad dul tegaysaa markaa midka koobiga control t ayaa leedahay kadibna halkan shapeska ayaa taabanaysaa halkan shapes markaa kliksid waxaa leedahay shapekan ha layga saaro kalarka marka sidaas looga saaro si lamid waxaa leedahay stroke ha laygu yeelo strokegiisa asagana strokena kalar u yeeli stroke kalarkiisa waxaa ka dhigaysaa tusaale ahaan weed oo kale ayaa ka dhigaysaa si lamid waxaa leedahay dhibca wareeg ha laga dhigo markaa dhibca wareeg intaad ka dhigin koor xoogaa stroke ayaa wax ka dhigaysaa mid la arki karo waad soo badinaysaa hadii 15 oo kale ayaa ka dhigaysaa qaybta aan soo furaysaa kadibna waxaad ka dhiganaysaa dhibcaha yararka wareegga ayaad ka dhiganaysaa intaas markii aad sameydid hadda waxaa ujeedaa uu samaysan yahay laakiin ma qurux badan si u qurux badan marka waxaad samaynaysaa kan ka hoose ayaa tegaysaa qaybtan layerska tegay midkan hoose koobiga ama midka originalka ayaa tegay control t ayaa leedahay control t markaa tiraa kadibna shift alt ayaa isla qabanaysaa xoogaa markaa shapekan waad soo weynaynaysaa xoogaa sidaan oo kale ayaad maartay usoo weynaysaa intaas markii aad sameyd asaga ruuxiisa asna waxaad ku samaynaysaa stroke ayaad ku samaynaysaa si marka stroke aad u seertaa halka stroke ku qoran tahay ayaad maartay tegaysaa kadibna waxaad kalar u yeelaysaa stroke aniga tusaalahaan waxaa leeyahay strokean white oo kale ha laga dhigaa leeyahay kadibna waxaa leeyahay strokean ha lii gaarsiiyo adiga ilaa iyo 14 16 meelahaas oo kale gaarsiinaysaa cabirkii markaas adiga ku qanay ana hadda markaas sidaas ay iraaday kadibna midkaan kale koobiga oo tixtixaha asagana control ti ayaa dhigi doonaa marka la select gareeyo shift alt ayaa isla qabanay kadibna xoogaa waad soo yareynaysaa haddii aad rabtid inaad iyaga siskooda sii weynaydidna waa sii weynay kartaayo adiga ayay kugu xiran tahay hadba go-aanku waa mid adiga kugu xiran oo marka haddaad stroke u baahan tahay waad sii weynaysan kartaa adiga ayay maarta kugu xiran intaa marka aan sameeyey kadibna waxaan leeyahay ha lay dhex dhigo boqolkiiba 50% sida axaa kusoo arkayn oo kale halkan waxaa ujeedaa boqolkiiba 50% in lay dhex dhigo si aan markaas u sameeyo iyadana way sahlan tahay t ayaan taabanaa oo tagasti ah halkan oo kale ayaa taga waxaan leeyahay boqolkiiba 50% markaa leedahay shift iyo waxaad isla qabanaysaa
5 number 5 computerkaaga iyo shift ayaa isla qabanaysaa kadibna saas ayaa maaragtay percentage lagugu sii doonaa haddii aad rabtid fontiga waad bedelanaysaa haddii aad rabtidna sidaada ayaad maaragtay uga leexsanaysaa adiga ayuu taas go-aankaas kugu xiraya waa mid adiga iyo maaragtay designkiina idiin dhexeeyo kadibna waxaa leedahay control T ayaa leedahay waa sabgaranaysaa shift alt ayaa isla qabanaysaa kadibna xoogaa sidaas ayaad maaragtay usoo weynaynaysaa haddii fontiga oo soo qancay dhima lahan double click ayaa siinaysaa oo textida 50% ah ayaad maaragtay double click sii doontaa textida markaasaan double click sii kadibna waxaad iska bedelaysaa fontiga farku qancido ayaad maaragtay iska raadsanaysaa haddaba saaxiibayaal intaan haddii aan sameeyey waxaan ku dari doonaa wixii macquula oo aan markaan ku dari karno xageeg waxaan rabaa markaa intaan inaan isla qaado sidaas ula qaada marka hore sidaas u select garaynaysaa meel banaan tegaysaa select ayaa soo saaraysaa kadib waxaa leedahay control T marka lagu select garay waa isla qaadaysaa halkaasoo kale igey ayaa leedahay haddii aad rabtid kor marsan kartaa halkaasoo kale ayaa iska geysanaysaa adiga ayay markaa kugu xiran tahay hadba meesha aad geysan doontid aniga hadba meesha ii toosan ayaan maaragtay iska geysan doonaa intaanu shape haddii aan sameeyey bal aan designkeena hore dib ugu noqon si aan maaragtay wixii kale ugu dari karno aan ugu darno haddaba saaxiibayaal waxaan samayn doonaa marka su-aasha weydiinta mudaya waxay tahay sidee loo sameeyaa shape-ka noocaan shape-ka halkan uga jeedid waa rectangle maadaama uu rectangle yahay waxaa ujeedaa inuu halkan ka kala go-an yahay halkan uu ka kala go-an yahay sidee shape-ka loo kala gooyaa waxaan filayaa su-aasha istaagnayno casirka horeeya ugu soo hadalno waxaan filaa qaybta bilowgiisa xataa inaan uga soo hadalno saaxiibayaal waqtiga ayaa nagu dhamaaday sina intaa gaari doona casirka xigana waa dhammaantoona dhammaantiin leh isma dhaafno